cid kastoo Soomaali ah oo cabasho ka qabta doorashada iyo habkeeda waa soo dhaweynayaa hal qof kama weyna Soomaali oo dhan Soomaaliya shacabkeeda ayaa hal qof ra'yigiisa iyo rabitaankiisa Soomaaliya ayaa ka weyn wakiilada caalamiga ee Soomaaliya gaar ahaan kooxda loo yaqaano C6+ waxa ay saacadihii la soo dhaafay wadeen dadaal xoog leh ma jirto nasasho maalmaha ay shaqada fasaxa ka yihiin xataa waxayna ka shaqeynayaan sidii dhinacyada siyaasadda ee Soomaalidu ay isugu imaan lahaayeen dantooda u garan lahaayeen gaar ahaan madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo wali u muuqda kuwa kala irdhaysan markii ay Puntland iyo Jubbaland diideen kulankii u dambeeyay ee Muqdisho laakiin ay soo xaadireen 4 xubnood ee kale faahfaahin kala duwan oo aan ka helnay kulamadii ugu dambeeyay waxay cadeynayaan in wakiilada caalamiga doonayaan in 10 maalmood gudahood lagu gaaro heshiis rasmi ah laguna saxiixo is-afgaradkii Baydhaba oo isna fulinaya heshiiskii 17 Sebtembar ee sanadkii idlaaday sida muuqata wakiilada caalamigu waxa ay ku dhagan tahay 2 qodob oo muhiim u ah xilligan geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya kuwaas oo labaduba aysan isku khilaafsanayn dhinacyadu balse ay kala leeyihiin dana siyaasadaysan qodobka koowaad waa in la fuliyo is-afgaradkii Baydhabo oo looga gudbay caqabadaha ay ka mid yihiin arrinta cakirneyd ee gobolka Gado gudiyada dib u eegistooda ee doorashooyinka jadwalka doorashada iyo arrinta Somaliland tan labaadina waa in la raaco aan dhinaxna looga leexan karin heshiiskii 17 Sebtembar Oktoobar ee sanadkii horena baarlamaanku meel mariyeen cid kasta oo dib u furtaana aysan ka aqbali doonin dhawaanna ay beesha caalamku goodisay inaysan taageeri doonin waxa reer marsan dhammaan heshidii baarlamaanka federaalku ay meel mariyeen bishii Oktoobar ee sanadkii hore labada qodob ayaa kuwa ay doonayso beesha caalamku inay hadda la yimaadaan fulintooda dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida waxay beesha caalamku heleen dalabyo shuruudaha oo ka yimid Puntland iyo Jubbaland oo dhawaan ka baaqsaday imaanshaha Muqdisho shuruudaha ugu culus waa in madaxweyne Farmaajo soo saara wareegta madaxweyne oo uu ku iclaaminayo in xilligiisii dhamaaday wixii ka dambeeyay 8 February wax kasta oo xilka qaadis magacaabiya dalaxsin ciidanba aysan jiri karin lana samayn karin in kulanka loo madlan yahay cadaadiskiisu uu socdo oo ka dhaco gudaha xerada xalane ee ay degan tahay beesha caalamka iyo in damaanadqayaasha saxiixa heshiiska damaanad qaadka ay qayb ka noqdaan wakiilada beesha lixaad xogaan ka helnay wada hadal maanta dhexmaray ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka iyo wakiilada caalamiga ah ayaa daha ka faydaysa in ay wakiilada wadamadaasi uga mahadceliyeen Masar Rooble dadaalka uu qaaday ee uu ku dajiyay xaaladda siyaasadda gaar ahaan la kulankiisa midowga musharaxiinta iyo booqashooyin uu ku tagay xaruntooda isla markaana yoolkiisu ahaa in xaaladda hoos loo dhigo wada jirna isfaham looga gaaro arrimihii kacsanaa wakiiladu waxay soo qadimeen sida ay u doonayaan loo dhaqaajiyo tareenka doorashada ayna noqoto mid dhammaan dhinacyadoo dhan ay ku qanacsan yihiin waxay ballan qaadeen taageero ay siin doonaan xukuumadda federaalka si looga dhameeyo ballanqaadyada wadajirka ahaa Rooble waxa uu sheegay wakiilada caalamiga inuu la kulmi doono mar kale midowga musharaxiinta madaxweynenimo maalinta Isniinta ay nagu soo wajahan uuna la yeelan doono kulamo ka durugsan kana ballaaran intii looga wada hadlay kulankii hore xogta iyo macluumaadku waxay cadeynayaan in kulanka looga wada hadlayo tubta doorashooyinka iyo siyaasadda beesha caalamku waxay u soo gudbiyeen xagga xukuumadda federaalka war ay ka wadeen dhanka maamulada aan imaanin kulankii u dambeeyay ee lagu casumay ee Puntland iyo Jubbaland waxayna xubo ka muujiyeen heerka tanaasulka ee aan danta guud loo eegaynin waxayna sheegeen saacadaha dulqaadka uu sii dhamaanayo labada maamulna ay u muuqdaan kuwa aan wali tanaasul rasmi ahayn ila wargal ayaa xaqiijinaya in beesha caalamka iyo dawladda federaalku ay suurtagal tahay inay isku raacaan soo saaridda wareegta madaxweyne oo cadeynaysa muddada xilhaynta madaxweynaha taas oo lagu cadeyn doono inaan dallacsiin xilka qaadis iyo magacaabistoona lagu samayn karin saraakiisha hay'adaha amniga taas oo la mid ah wareegtadii uu soo saaray Xasan Sheekh Maxamuud waqtigii uu muddo xileedkiisu dhamaaday waa mid ka mid ah shuruudaha ka yimid hooyada federaalka Puntland waxaana wali madaxtooyada Soomaaliya ay ku adkaysanaysaa inaysan aqbali karin kulanka looga hadlayo doorashooyinka oo ka dhaca meel ka baxsan xayndaabka fiila Soomaaliya oo ay tahay halkaas in lagu qabto balse aysan ogoleen in meel kale lagu qabto kulanka iyadoo sababtu u weyn tahay amniga cabsi ay ka jirto
waxaana wararku ay tilmaamayaan qodobkaas uu yahay midka ugu weyn ee ay doonayaan maamulada Puntland iyo Jubbaland in wakhtigan la meel mariyo oo kulanka lagu qabto Xalane laakiin taasi ay diidan tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya beddelkeedana ay aqbashay shuruudda soo saaridda wareegtada madaxweyne